هشام بن عبد الجبار لا يراهدو أموي baa lagu kiciyay dabeetana ninkaasaa meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday amiriyiintii buu eriyay meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladii buu isku dabarido laakiin looma daynin ee waxa bilaabmay waqti fitna oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badan dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422 laga gaadhay waa 22 sanadood 22 ka sanadood 13 amiirul muuminiin baa soo maray يعني واحد قياسي كرتا مركا فتن كي مشاكل كتاجنا سيدا ويجي لبي الله بعطن سنة وصدق هي تبن أمير المؤمنين وكلا نوع أي صامرين واحد عي نيكي جوري كوحد نايشري ميدا ولاليين و بقر كيو ينايا الحكم عالم كي نكش تيجي نودالي الحكم ابن عبد الناصر نمودالي أو سليمان لا يراهده ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaanu babacdhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladdii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo ashtaala dawladii weyneyd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilaad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Spain ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle oo Arabigii markay qolada Carbeed akhriisay qashtaalo akhri waa qalca dawladda yar oo meesha joogta ayuu tagay wuxuu kula heshiiyay dawladdaas yar inay saacidaan way ka saacidaan dawladdii Qurtuba ka talinaysa in la inqilaabo ay ku wada duulaan Alfonso in la yiraahdo dawladda tan nimankii haystay wuxuu arkay fursad saciida inay tahay awal dawlad yar oo jisiya bixiso ka dawladda weyn ee muslimka xukunta buu ahaa maantana waxa arkaya muslimkii oo islaynaya fursad buu arkay inay tahay waa ogolahay buu yiraan ku wada duulo wala wada duulay dabeetana waxa laga qabsaday meeshii iyada ahayd ninkii la oran jiray Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar al-Mahdi la baxay ayaa qashtaala iyo Suleymaan ibn al-Hakam سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله قلدا تاريخ ده waxay dhaahdaan المستعين بالسليبيين buu ahay مستعين بالله ina ma hayne inta qoladaas oo ka haystay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay الحكم ابن عبد الرحمن الناصر wiilashii mid kamida oo سليمان كان يا هشام كيبا ولا لا كي غورغا لو خري جيري markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-fata waadih oo aamiriya aamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday maxamed ibn abi aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldanyo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskuurarka ahayn meesha ay kala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen de ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaynaa aan gaal kale raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa wahay Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayay u yimaadeen boqorkii haystay waxay yiraahdeen waxaanu rabnaa Suleymaan ibn al-Hakam
iyo waxoogaaga barbarka oo haysta Sulaymaan ibn al-Hakam kii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kaloo la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhaweeyay qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo wadanka joogay kuwaas markaa sanad u ah waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacantayada soo gasho ninkan ay u tageen Barcelona haysta waa duwalkii yaryara ee jizyada bixin jiray ee uu Cabdiraxmaan an-Naasir jizyada siin jiray waa min bacdihina al-Haajib al-Mansuur baa jizyada ka qaadi jiray ninkii jizyada bixinayay bay intay u tageen bay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaad nala furato wadankii oo meesha nala qabato Amiir Barcelona wuxuu yiri waa si fiican laakiin bishuruud shuruud baan dhiganayaa shuruudaasi baan idin kula duulayaa waa maxay baa la yiri shuruudaadu waa laba nin oo deeska soconaya la ciidan ma haystaane wuxuu yiri ciidamadiina iyo wixiina kale markaa keensataan anigu dagaalku intuu socdo buu yiri maalin kasta oo dagaalkaasi soconayo 100 diinaar oo dahabiya baan rabaa oo boqortooyada ay leedahay cashuura maalin kasta oo dagaalku soconayo dawladda Barcelona in la siiyo 100 diinaar oo dahabiya kow ciidan baan idin siinayaa ciidanka aan idin siiyo askari kasta oo dagaal gala waxaan rabaa 1 diinaar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kasta oo dagaalka gala 1 diinaar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa bulay dagaalka markaynu gallo ama saddex dagaalka markaynu gallo haddii aynu jabinno khilaafadii naasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dawladda Barcelona inay hub ka qaadato afar waxaan rabaa buu yiri madiinada Salim la yiraahdo oo ah mudankii uu furtay Cabdiraxmaan an-Naasir ama Cabdiraxmaan al-Thalith ninka la oran jiray dhulkii uu furtay ah magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta la igaliyo afarta sharti hadda aqbalaysaan way idin la duulaya boqortooyada maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 diinaar oo dahaba askari kasto caynkaasiya waliba askarta wadankii wuxuu u ilaamiyay in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo wariya tatawucaya buu yiri duulaya oo waliba lacag helayo maalin kasta 1 gini baa la idin siinaya dadkiiba askar bay soo qoreen waxa la yiraahdaa anaga duulayna la meesha lacag baa ka furantay duulimaadkiiba intiiba uu ka aqbaleen waxay yiraahdeen intaaba waa ku saxeexanay